waxay kaloo farxad ii ah inaan ka soo qayb galo arooska saaxiibkay wariyaha caanka ah ee miisaanka leh abshir dhiirane abshir cabdulaahi faraweyn arooskan wuxuuna xasuusinayaa dhaqankeennii iyo hiddihii iyo soo jireenkii Soomaaliyeed oo la soo nooleeyay aad iyo aad bayna ugu mahadcelinaynaa lamaanaha sida quruxda badan u doortay in ay ayagoo ku nool caasimaddii Puntland ee Garowe inay arooskooda keenaan koobtan quruxda badan oo caleenta leh oo miyiga ah aqalkaana ay ku aqalgalaan caawa marka aad iyo aad bay waxay u yihiin dad unique ah ama nooc gaar ah oo aad loola cajabo bay weeye arooskani wuxuu gelayaa taariikhda wuxuu noqonayaa arooskii ugu cajiibsanaa ee intii aan xasuusto ka dhaca geyga Puntland sababtoo ah dad caan ah oo wariye ah oo journalista adduunka dhan laga yaqaan oo caasimaddii degan hadduu doortay inuu geeli iyo arigii dhexdooda arooska ku dhigto waxa weeye waa ididiilo soo noolayn dhaqankeennii iyo aad iyo aad baan marka ugu hambalyaynayaa waan u ducaynayaa munaasabadan sida uu xogayuu sheegay waa munaasabad gaar ka ah munaasabado badan oo dhaca waa munaasabad dhaqankeennii iyo hidaheennii lagu noolaynayo hidala'aanta iyo dhaqanla'aantuna waa huula'aan qofku hadduusan huulahaynna sumad ma laha marka arrintani arrin aad iyo aad muhiim inoo ku ah weeye ma garanayo inaan erayada ku habboon ka odhan karo munaasabadan oo kale waayo waxay leedahay culayskeeda iyo miisaankeeda arrinta dhaqankeennuna waa arrin u baahan in la daba qabto oo meesha hadda ay marayso iyo dhaqamada kale oo ayna soo galay ay aad iyo aad u fasahaadiyeen haddii sanad walbaba uu sidaanoo kale qof caan ah uu arrintan u horseedo qof la yaqaan bulshadu ay ku dayanayso uu arrintaanoo kale u horseedo waxaa soo noolaanaya dhaqankii waxaana ku dayanayaa in kale oo tiro badan waxay kaga sii duwan tahay marka miidiyaha ama saxaafaddu marka ay mawduucan ehel u noqoto wuu sii ballaaranayaa oo ku ekaan maayo dooxada aan caawa joogno ku ekaan maayo qaraabada ku ekaan maayo asxaabta u timi ku ekaan maayo Puntland ee Soomaaliya iyo adduunka oo dhan buu gaarayaa waxaan rabaa cawalkan laba kalmood ka iraado kalmad waxaan leeyahay dhalinyarada kalmadna waxaan leeyahay arooska kalmad waxaan leeyahay sidii rasuulka kaleey salaatu salaam uu yiri barakallahu lakuma wa jama'a lakuma khayran ilaahay haydin barakeeyo arooskiina kuwii khayr ku barakooban allah idin ka dhigo intaas waa duco arooskan leeyahay dhalinyaradana waxaan leeyahay sidaan oo kale waxay na tusaysaa inaynu soo noolayno dhaqankeennii Soomaaliyeed sida dawladnimadeennii Soomaaliyeed ay dib ugu soo noolaanayso in Soomaali dhaqan ay ku faantay leedahay dhaqan waxay leedahay ummadda ay uga duwan tahay waxaadna ogaataan ummad kasta oo jirta waxa u ah sal u ah dhaqankeeda oo marka in dhaqanka soo noolayno waa muhiim weeye waxaan hadalkay ku soo gabagabaysanayaa dhammaanteen waxaynu nahay dad muxuu ahaa caaw isu soo taagay inaynu labada qof oo dhalinyarada ah aynu dhiiri gelino
waxaan leenahay labadoodana ilaahay ha idiin barakeeyo hawshiinna iyo barnaamijkiinna gurigiinnana guri khayr allah ka dhigo dadka reemanti deegaanka reemantina waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin waxaan dareemayaa in aad dareemaysaan caawa oo kale farxad maadaama ay cid walba idinla joogto idinkana halkan aad caawa farxad ku samaysanaysaan abshir iyo samiirana aad maaragtay aad runtii aad uga farxiseen annana waxaan idin leenahay deegaanka reemanti sidaad u dhiirigelisaan dhallinyarada ayaa liidin dhiirigelin doona haddii la hadlo waxaan rabaa batal baa dhinac taaganoo wuxuu rabaa isaguna inuu kelmadaha kolay dhihi doono waxaan rabaa axmed cawil waxaan ku soo gabagabaysanayaa saxaafadda sharafta leh waxaan leeyahay idinkana caawa guul baa idiin soo hoyatay waxaad noqotay saxaafaddii ugu horraysay oo dhaqankana qayb ka qaadata marka saxaafadda dhaqanku hadday is yeeshaanna waxaan filayaa dhallinyarada badan ee hadda dhalanaysa ama kuwa dhashay oo aan garanayn dhaqanka inaad wax bari doontaan marka waxaan idin leeyahay idinkana aad baa u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa dhammaan waxaan leeyahay arooskeenu caawa si sharaf leh iyo farxad inuu ku furan yahay si official aan u furaynaa waana inoo furan yahay arooskeenu waa mahadsantiin dhammaantiin aad buu mahadsan yahay agaasimaha wasaaradda cadaaladda dowladda Puntland halkan sidoo kale waxaa goobjoog ka madax ka socota hay'adda bisha cas agaasimaha gudoomiyaha hay'adda bisha cas Mr. Dhagaweyne ayaa sidoo kale goobjoog ka waxaa agaasimuhu sidoo kale waxa uu yahay agaasimo ku xigeenka hay'adda migration ee Puntland waxa uu sheegay in ay daweyn ay sameyn doonaan oo agab caafimaad ay wadaan oo ay tuulada ay ugu talagaleen oo ay ka mid tahay waxyaabaha dulinkan kaneecada lagula diro sida siyaariyada marka aad buu mahadsan yahay sida uu u soo sharfay arooska waxaan u maleynayaa caawa dadweyne aad u fara badan ayaa halkan iskugu yimi oo xigmad kala duwan halkan ka soo jeedin doona waxaan ku wareejin doonaa amaanduulaha wada hawsha inteeda kale waxaan filayaa inuu waxyaabo xiiso badan oo halkan uu ku soo bandhigi doono amaanduulaha oo kaashanaya dadweynihiisa sharafta leh ee halkan ka soo qayb galay ee xigmadda la wada guuxaya cawil baan weeyarina aw maxamed maxaa ku yidhaha sacabka iyo mashxaladana ku kaalmeeya dadweynaha sharafta leh waxaan u sheegaynaa hadal ma dheera abwaanku waa reebanti iyo maylaba waa ka dhexeeya hadde ogaada saas waa markii qusus ahaan hoos loogu dhaco laakiin dadweynuhu dhan weeye hadday xaaladdu baqto waad ka qabanaysaa abwaan maxaad ugu soo tala gashay xalfaddan xoogale waxaan u malaynayaa hadda ayaa mar dhow wakhtiga ayaa ku keenay saacaddaanay ahayd inaad timaadid maamulka ilaah baa iska leh ku soo dhowow welcome halkaas waa ku dhinac taagna hidaha iyo dhaqanka iyo gaashaanka ku xajinaya musikiya burda may halkaa mashina halkaa ka wada halkaa afka ku qaba meesha dhalalaaka waa casriga ku cusubnay waxa ka kumayna hal jirin hadii la soo galay halkaa kaga guj bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo muslimka meel kasta ay joogto waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa ka qaadnay anaguna waxaanu loo yimid xaflad aroos oo aad u qiimo badan oo cajiib ah oo ka duwan kuwii hore oo ka dhici jiray deegaamada reer Puntland oo magaaladii iyo caasimaddii looga yimid oo loo soo aaday miyigii iyo meeshii dhaqanka yeeduu ka jireen haddaannu nahay ummadda reer miyiga caruusiyada labada ah oo nooga yimid magaalo madaxda Puntland ee Garowe waa soo dhaweynaynaa waa u ducaynaynaa abshir iyo samiiro iyo malxiisyada dhammaan iyo hay'adaha kala duwan iyo culimaadudiinka iyo dhammaan inta joogta arooskaba waa mahadsan yihiin mar rabo inaan anigu hadal badan idhaahdo waxaan rabaa inaan xafladda furo maadaama laygu yeeray magac abwaannimo malaa waxaan u malaynaya anigu abwaan maahaye midha abwaanno kalean caawa jooginoo jaanis baa jiraan u malaynaya bismillahi raxmaan raxiim waxaan ku soo dhaweynayaa tix gabaya oo aan ugu talagalay waana ka baxayaa haddii lahayd nasi dhaqsa leh hoyaalayey 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 hoye hoyaalayey 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 hoye hoyaalayey 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 hoye
sidii dawlad caad loo qabo calanka loo taagay oo curatayoo debi u heshiin lagu cawaynayo oo aan cidi isman dhaafinoo calaaqad loo diiday ama maalin ciido dadkuna soo cabbiray meelo ama madal rag wada caaqil iyo culima shawrayso arooskoon xisriga laga xumay caamka laga yeelo curdankan wakhtigu ciilininoo caashaq kulan siiyey calankiiyo hiddaha lagu dhiso curufta loo yeelay calankiiyo hiddaha lagu dhiso calanka loo daagay wiilkan caruusanaya waa curadkii daaroode codyar inaan ka dhiibaan rabaa caynaduu yahaye cilmi shiikha laga raacday iyo caabud baa dhalaye asna weli cibaadaysta iyo culimo weyo kartoo culuday beelaha hadday curub bixi weydo marunbay cakiirantaan baan calba loo heline curuf xaaja wiil gaaraan ayaa loo cidirayaaye codkar weeye loo yeera oon cidi ku gaaray afdirsinya kuma ciilanoo carad waa yahaye waa wiil cismaaciila iyo ciidaha daaroode waa kabla lahaa cidiyo ka badan cawska geedahaye cidda reer hartiya weeye iyo curad ma jeerteene waa ceelkii boqortooyadiyo curka maxamuude cirkooda ay carrado nuurloo maalku cuni waayey ku caruusta meel carafla iyo carasankeniye uma cil qabtaan gaafrun baa lagu carrabay curdan baxay lamoodyeeyada caadil ku qoraye abtirsinya kuma ciilanidoo carad baa tahaye cidda reer garaad baa tahoo calanku zaro calafkiiyo nasiibkiiyo adaa caadil ku qoraye alleelahay congaarlama watay ceeb la wadahoy waxaa qalab casriya iyo xariir ciidda lagu dayrey ama tiifi laysugu camiray caalamkuwa yaabey ciraaq moodnay muuqaaladan layrku cawiyaye cidba looma dhigin gaafkanoo curasha weeyaane allow cuuraadda wiiliyo kuwaan casi noqonaynin cabdi iyo siciid iyo kuwii ciidan laga leefo ifka laba cibaadaysta oo culima dimeedo laban kala cininine gurbood wada cayaarsiiyo ifka laba cibaadaysta oo cana iyo wiila akhiirana jannada wada cabo cadil ku abuuru cadilow ka yelcawo waan ka codsanaynaa hadda waxaan ku soo dhaweynayaa tix yaro majaajilo ah oo waxay dhex martay oday reer miyi ah iyo gabar yar oo 16 jir oo ayana reer miyi ah majaajilooyinka reer magaalka dhex maray qolada reer magaalka waxarna inay iyagu noo soo gudbiyaan anagu waxaan soo gudbinaynaa kuwa dadka reer miyiga dhex maray waxay ahayd oday guurdoono oo xoogaa ma garanaysaa gabartii hore ka gabowday buu ahaa waa uu soo carraabay oo gabar yar oo aad u qurux badan oo ari wadu arka odagu afaray buu tuuri jiro tixbu ku shukaansaday gabadhii mana filayn gabadhu inay gabaydo markaas odagu gabadhaada gabay taqaana gabadhu show waa mid afarada taqaan saas odagii baa ku yiri gabadhii gabar yahay cadaantaada badan waan ku caashaqayo curdan iyo nabaad baa tahay iyo caynka luuliga ee haddaan caalin igu kaaxiro iyo culimo kuu geysto haddii qaalma aan curanin iyo caawin kaa tubo cashiirada tolkaa iyo haddaan cidaha muuneeyo haddaan laba caruus noqonno oo wada caweynahaya aqal wada cad iyo gaaf haddaan kuu cilaamiyo
إعلام بوضع cunsur baa ka timid waayahan dumarka cayntiisa bacla carar inaad noqotay baa ka cabsanayaabi بعد إذا بلعتك تقول الله malaha waxaa jiray xanuun bac qaadashada baa jiray oo khatar ah أيام من السوق اللي كان بعلاصي haddaan cood ku raacsado dushii faraha ciinley armaan ku cawarmaa guur xun waa lagu ciroobay odagii ciinley wayna ku dhowdahay doogaada la socda haddaan maal ku raacsado dulaha ciinley wayna haysataa gabadhii ayaa la yaabtay odagii markii horeba waxay la yaabanayd ninkaani siduu xaafadiisii u caawa ugu dheelmanayo haddana waxaa yaab labaad ku noqotay shukaansigiisa iyo maxadxadada uu la soo galay marka way la yaabtay waxay tidhi cunsuraha ilaahay ka badan cawska geedaha iyo cisho noolba waxaa kuu imaan camal aad yaabtaa bay tidhi 20 anoo jira fil waa lagu ciroobaayey cabaadyaha surkayga iyo anoo luquntu ciiraysa ma haddu iyo caashaqa duqan cidaha gaarayn cidaha gaarayn xaafadiisi ma u dheelmanayaan aan isla haawar adeer gacal iyo caynadaan ahay ma geeyo oday ciroola ah oo indhahan caadku kaa fuulay baa kuu cabbiray been curdan wiila baan rabay inaan wada caweynaayo codka muustig iyo dhaantadan ku cawanayaayo kuwa foodda caankaa leh waa caashaqii galabay وفول فود يهود بالله يستا الله سخيره kuwa foodda caankaa leh kuwa foodda caankaa leh baa caashaqii galaya wiil aan saaruf igu cayrin iyo leyla caga weyn leh amaan jeesar aan baxa lahayn ii cuntami waaye codka muustig iyo dhaantadan ku cawanahayaaye carmal iyo garoob koox dhalay oo ciirsan baa badana carradaa ka sii dayo run baa lagu cabay baabay tiri عشاء ومغليسان dadkii tuxaa isku riday yaha la isku riday waa maqlaysaa yaa raacsaday gabdhuhu iyaga iska soo saaraya hormajeex baa laga rabaa hormajeex laba hormajeex meeshii fagaaraha meeshii rag folkiyo fulaygu yeedha kuma dhaco waa rakimato raka fuushay waa rogaal celistii horeetaa loo riyaaqay soo gaar iyagaa isgaranaya ma toobaha ma tayraha ma tatoobka sidataa ma ameritarigba maanaha ku rita mase way iga soo gaaraysaan iga soo gaara laba caawa laysu raacayo caawa waa labadeena miyay ahayd soo gaar حاشا hormajeex bay soo geli doonaa hormajeex gabdhihii diya dhaqanka hormajeex ayaan u shaaraynaa caruusow ku calmadaye caaway istaag caruusow ku calmadaye caaway istaag horay u soo itiikhi gacantaada midigisii aboowe waan kaa kartaye gaaridana salaan aboowe guulayso gogoshaada dib ugu noqo waxaan ka soo gaabtay meel aan lahayn gayga cashaa ma doonayne cindigay wuxuu ahaa caruusad baa idin cusube caawo soo salaan caruusadayadoo iliyo cawra daralow caruusaday ku calmadaye caaway istaag horay u soo itiikhi gacantaada midigisii abbaaya waan kaa gartaye xaajigana salaan abbaaya guulayso gogoshaada dib oday dhaqameedkii marka hore aad aragtay wey ku soo dhaweeya sicirkaan wax kale laguguma yeeran waa tirseesaad gogoosaya waxbaad la dhacda laakiin codkaaga ayaa dadkii soo jiitay lagu meriyo saanku adaba waxaa wiil anfacadii ka go'ay ku ag wareegaba inantaan nin adag baa heliya wiilayan badane inta kalena oon iyo dhulbay orog la joogtae biya wawaba haddaderidii taariikhda asalkeedu ilmalaho waa gogob la ogaaday isaanka waa laga garta erayadeediye awlaadsan bay ku dhashaa horyadii wacane
إلهي هاتي إلهي هاتي hoyaalay 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 hoye hoyaalay 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 hoye hoyaalay 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 lagu magacdo waagay cawlka galabtiya lagu mood xareed caamahan cagal la taabsinin lagu mood cagaar soo bixiyo caanka geedahaye lagu mood irkooda hayo moodu ku cayaar lagu mood camudi dhulkiyo sagalka ciideede lagu mood cirdoog loo xidhay cirifka joogtaye lagu mood cagaar soo bixiyo caanka geedahaye هذا انت اسوي قدن yahay laakiin dib baan ugu soo noqonayaa